Assalaamu calaykum kulan wacan saaxiibayaal halkani waa Caasib Media ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee qisadii Maxamuud Yare. Maxamuud iyo aabihiis waxay imaadeen guriga. Maxamuud waxa uu raali geliyay xaajiyada wuxuuna u sheegay in uusan mar dambe guriga ka tageynin tanna ay tahay qalad ka dhacay. Dhanka kale Maxamuud waxa uu soo xirmi rabo iskuulkii waxa uuna marayaa sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare. Xaajiga wuxuu diyaarinayaa wadanka uu la jecel yahay wiilkiisa Maxamuud inuu ugu diro jaamacad. talooyin fara badan oo loo soo jeediyay iyo la tashiyo uu sameeyay kadib wuxuu qaatay go'aan ah in haddii Maxamuud oo imtixaanka ku guuleysto loo diro dalka Masar. gabadhii kaliya ee xaajiga iyo xaajiyadu ay dhaleen imtixaankii dugsiga sare inay u fariisatan laga sugayay. waxay reerka u keentay wiil una sheegay in uu diyaar u yahay gabadhooda in uu guursado wax walbana ay ka soo heshiiyeen. waxay noqotay waxaan la filaynin xaajiga iyo xaajiyadan way ka wada hadleen arrinta gabadha in waxbarashada laga kala gooyo iyo in aan laga kala gooyin waxbarashadeeda. waxaa hadalkaasi soo jeediyay xaajiga. xaajiyada iyada waxay qabtay fikirkaasi mid ka duwan oo ah gabadha in ay mar walba nin u joogto maantana haddii loo diido ay macquul tahay in ay wax kala samayso oo ay la cararto. gorfeen dheer kadib waxaa lala tashaday wiilashii ka waaweynaa iyagana hadalka hooyadood ayay qaateen sidii ayaa gabadhii la isugu afgartay oo waa la bixiyey. maalmo kadibna waa la guuriyey meel reer ka foga ayaana la dejiyey. Maxamuud waxa uu bilowday imtixaankii waxa uu bilaabay dadaal fara badan in uu ku bixiyo habeenkii ku dhafro oo si laba dadaalkiisii oo ugu jiray waxbarashada. muddo kadibna waa uu soo gabagabowday. maalmo kadib waxaa la soo dhejiyay imtixaankii wuu baasay Maxamuud si fiican ayuuna ugu soo baxay kaalimaha hore ee galaaskiisa. xaajiga iyo wiilkiisa Maxamuud markii laga soo baxay salaada maqrib ayay ballameen waxa ayna fariisteen meel shaah laga cabo. xaajiga ayaa wiilkiisa u sheegay in jaamacad dalka Masar ku taalo loo soo dhameeyay uuna aadayo isaga naftiisana uu mas'uul ka yahay markaan kadib uu nin weyn yahay dal shisheeyana u tagayo. dardaaran dheer kadib waxaa hadalkii lagu soo gabagabeeyay Maxamuud in uusan wax adduunyo ah uusan walaalihiis ku qabsan karin isagana la siiyay mid ka mid ah xaqii uu ku lahaa laguna saxiixay hantidaasi wixii kale ee soo harana uusan wax shaqo ah ku lahayn wuuna aqbalay. intaas kadib waxaa loo diray dalka Masar halkaas ayuuna ka bilaabay jaamacaddii. xaajiga labadiisa wiil ee waaweynaa ayuu isugu yeeray wuxuuna u sheegay in aysan balwadani adduunyo aakhira aysan faa'iido ugu jirin uuna doonayo in uu labadooda u rabo inuu laba baqaar u kala dhiibo iyagana ay leeyihiin lagana doonayo in ay noloshooda ku horumariyaan wayna ku qanceen hadalkii sidii ayaana loogu dhiibay. 6 bilood ee ugu horreysay si fiican ayay u shaqeeyeen oo faa'iido ayay soo saareen xaajigana waa aaminay. Maxamuud dalka Masar jawigiisii waa la qabsaday jaamacaddiisii ayuu dhigtaa kaliya waxa uu aad uga xiisay aabihiis oo wax walba u ahaa. dhanka kale shirkadiisii oo qaybta ku lahaa faa'iido fiican ayay u soo saartay. xaajiga waxa ay buro ugu soo baxday caloosha qalliin in lagu sameeyo ayaa la go'aansaday waana loo sheegay in ay halis tahay haddii ay ku sii taalo qalliinkeedan uu halis yahay. wuxuuna go'aan ku qaatay in lagu sameeyo qalliinka. carruurtiisii xaajiyada ayuu isugu yeeray arrintii ayuu u sheegay wax walbana in ay dhici karaan qalliinkani uu yahay nolol iyo geeri. isla meeshii ayadoo la fadhiya ayaa la wacay Maxamuud sidii ayaana loogu sheegay wuu naxay wax hadal ah kama soo bixin aad ayuuna u ooyey. Maxamuud xaajiga ayaa si fiican niyadda ugu dhisay una sheegay in uu hadda nool yahay waxbana u qabin xitaa haddii uu dhinto inuusan sidaa u ooyin ayuu ka codsaday balse taa beddelkeeda u soo duceeyo. xaaji Maxamed wuxuu aaday isbitaalkii dhiigga ayaa laga qaaday caafimaadkiisa iyo dhiiggiisu way fiican yihiin waxaana loo sheegay in qalliin lagu samayn karo uuna soo diyaar garoobo maalinta Sabtida wixii ka kala daadsanna uu soo hagaajisto sidii ayuuna ku soo baxay. dhanka kale wiilkii u yaraa xaajiyada iskuulka waa ka saaqiday sidoo kale wadadii labadii waaweynaa ayuu maray oo wuxuu bilaabay in uu qaadka la dhuumaalaysto cid ka warqabtana ma jirto. Maxamuud meel ayuu ku murugsan yahay aabihii uu adduunka ugu jeclaa isaga oo aan la joogin uu qalliin galayo mar walbana uu ku qasban yahay in uu taleefan soo diro. alla ciil badana ka fogaanshaha waalidka mararka qaar si kastaba dantu ka adag. waxaa la gaaray xilligii qalliinka lagu samayn lahaa xaajiga. isbitaalkii ayuu tagay waxaa loo gudbiyey qolkii qalliinka waxaa lagu sameeyey qalliinkii. qoyskii waxa ay wada joogaan isbitaalka wadnaha ayaa farta lagu hayaa. Maxamuud wicitaankiisu xad ma lahan mar walba in uu soo wacay ma moodo. ugu dambeyntii waa lagu guuleystay qalliinkii xaajiga si nabad ah ayuuna ku soo dhammaaday. Maxamuudna waa loo sheegay in uu xaajiga nabad qabo sidii ayaa neef ugu soo fuuqday naxdintiina ugu baxday. muddo kadib waxaa laga soo saaray isbitaalkii waxaana la keenay gurigiisa wuuna caafimaaday. Maxamuud jaamacadda sanadkii labaad ayay u maraysaa jawiga Masarna aad ayuu u fahmay wuxuu yeeshay asxaab badan nolosha wuu ku faraxsan yahay. muddo kadib Maxamuud waxay isbarteen gabar meesha leen ku sugaysay aadna u dabeecad wanaagsan waa jawi cusub oosan hore u aqoon arrimaha dumarkana kuma xeel dheereen.
tanna waa markii ugu horeysay xiriir jecel uu sameynayo. Labadii wiil ee ugu waaweynaa ilmaha xaajiga 2 sano ee ugu horeysay si fiican ayay u shaqeeyeen waxayna ahaayeen kuwo fahmay ganacsiga. balse nasiib darro waxay ku soo laabteen wadadii balwadda oo ay mar kale isticmaalkeeda bilaabeen. Maxamuud gabadhii ay nolosha isku fahmeen waxa uu soo gabagaboobay arrintii ay u joogtay Masar. Aad ayuu ugu xun yahay Maxamuud fogaanshiyaha gabadha. awal buu ka warqabay in ay u joogto dhoof ilaa nabar aad filayso naxdin ma leh baa hore loo yiri, balse ugu dambeyn waxay go'aan ku gaareen inay isguursadaan kadibna ay baxdo. Maxamuud wuxuu la soo hadlay aabihii sida ay wax u jiraan ayuuna u sheegay waana laga aqbalay. Dhanka kale gabadhii muxibo ahayd iyadana dadkeeda ayay la hadashay, welibana Maxamuud ayay bartay. Inkastoo laga hor imaaday go'aankeeda haddana waa laga aqbalay. Markii dambe sidii ayayna ku dhameysteen. Muxibo waxay u dhooftay dalka Canada oo ahayd halkii ay muddo badan sugaysay. nasiib wanaag markay tagtay waxay lahayd uur aad ayayna ugu farxday. Waxay garan weysay si ay ugu sheegto waxayna go'aansatay in ay kadis ugu dhigto Maxamuud oo ay farxadda la wadaagto. taasna waxay u fududeynaysaa Maxamuud inuu xaaskiisa ku midoobo dalka Canada. waxay soo qaadatay kaarkii lacagta ay Maxamuud ka wici lahayd, waxay qortay teelkii Maxamuud iyada oo farxad ka muuqato. la soco qaybta xigta hadduu Rabbi dhaho. daawada haddii aad qisadani ka heshay muuqaalka laag dheh. haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biir oo subscribe taabo furo gambalka si aad u heshay muuqaaladeena tan intaan ku kulmayna qaybta xigta. nabadgelyo.